بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرآن ستيريو أما كان عجلها دينك لقطوبة القرآن ستيريو ديار كلها إنه كود ديار شو عجلها CD دا يو فيديو دا يو كوا يرير كبا أسوي ذيك سنة يا غالب عصري دك سيمالة هذا ما هروسو جارا القرآن ستيريو كوي على بكارة عبد الشداية مقديشو صوماليا واحد كلا سو حرير كرتا تلفون بركيسي هاي القرآن ستيريو سل لحدين شن لواتين له صدين سدح أما لواتين شن لبرشن لحدين أفر بكارة عبد الشداية ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع عين ما توب الله سنين فيه الدين والسياسة، أما الدين هي السياسة. weertaa jirta in badan dadku dhagahooda ku soo dhacda dad badan inay yidhaahdaan waa laa siyaasata fi diin, ama waxa siyaasadda la yidhaahda iyo diintu isma galaan. weedhasan dadka qaar waxay yidhaahdaan iyagoo raba inay diinta dhowraan, u arkaya siyaasaddu inay wax aada u rabshad badan tahay ama shay aan nadiif ahayn u arkaya, dabeetana laxajecla ay ka qabaan diinta daraaddeed ayay dadka badh yidhaahdaan. dadka badhna iyagoo u arkaya inay diintu wax yaroo kooban tahay oo aan arrimaha qaarkood ka hadli karin ama se gaadhi karin ayay weedhasan yidhaahdaan. labada qolaba markaasi waxaad moodaa weedha marka hore inay isku waafaqsan yihin oo ah laa siyaasata fi ddiin, laakiin waxay isku khilaafsan yihiin uun weedhasan sidii ay u sharxi lahaayeen ama se ay u macnayn lahaayeen. su-aasha markaa isweydiinta le waxay tahay inaynu marka hore sharaxno maa hiya siyaasa, maxay tahay, wamaa huwa diin, diintu se maxay tahy. markaynu garanno ahlulfalsafa waxay idhahdaan alxukmu cala shayi farcun can tasawuri, shayga oo la xukumo bay idhahdaan wuxuu farc ka yahay. يعني marka hore la isla garto waxa markaynu isla garanno siyaasadda garanno isla markaana aan garanno diinta waxaynu odhanaynaa waxana wax isgalamayiin se isma galaan. laakiin labadoo aynu mid jaahilsanay haddaynu idhaahno ma isgalaan se isma galaan haddaynu nidhaahno waxaad moodaa in mashkilad badan aynugu keenayso. waxa kaloo isweydiinta le waxay tahay maadaama weedhatani sidee bay ku soo baxday. waxaa jira musطalaxaadka la isticmaalo waqti kastaba ha yimaadaan inay leeyihiin waxyaabo ku xidhiidha taariikhda iyo mulaabasaadka waxa kale ay soo mareen, waxyaabo ku xidhiidha sida dadku ay ugu soo dhaqmeen erayga kan marka la tilmaamayo. tusaale ahaan yani reer galbeedku waxay idhahdaan shay waloo la baadhaya waxa la ogaadaa marka hore sociology waxay idhahdaan oo ay leeyihiin waa mulaabasaadkii iyo duruuftii iyo dhaqamadii soo raacay. isagoo eraygu marka hore uu qurux badan yahay buu dhaqan xumi soo raaci karaa, dabeetana uu fool xubaan karaa. waxaa kaloo dhici karta siduu kusoo baxay si aan ahayn inuu u sharxamo. si kastaba ha ahaatee waxa u baahan inaynu isweydiino maxay tahay siyaasaddu, maxayse tahay diinta, waa se diintee taanay siyaasadda isgelin. erayga kanise xaguu ka yimi. diinta marka diin la leeyay cinda almuslimiin sharax bay ku leeday, laakiin fikri lgarbi sharax kalay ku leeday. reer galbeedka waxaad ka dareemi kartaa sida ay u kala fog yihiin labada sharax aynu u kala haysanaa. masalan daa'irat almacaarif alfaransiya fi lfanni waladab wasinaaca wama shakalaha
encyclopedia faransiiska ee ku saabsan adabka iyo literatureka iyo fanka iyo wixii la halmaada marka uu sharxayo kalimatu diin wuxuu dhigayaa 100 macne oo uu ku sharxayo ereygaasi addiin ama religion markaasuu wuxuu door bidayaa macnaha 100aad ee ugu dambeeya culamada isugu tagtay qorista encyclopediahaasi waxay door bideen oo yidhaahdeen diintu waxay tahay bay yidhaahdeen كل ما خالف العلم والحقيقة فهو دين وحكا خلافة إلى هذا الحقيقة طبط سيدة هي ساينس كما علمي والدين إذا هي الخرافة هذا معنى هذه وحوية أنت وحكا الصوب بيني والدين وحياك كلا وحي سيمكا منك الدين تصيده هيستهدوا إلى هذا لا سياسة في الدين هو معنى لكن منك هيسته diintaa ka gedisan ama sharxkaa ka gedisan siinaya hadduu yidhaahdo iyana waa macno kale idan qadiyadda waxay u baahan tahay inaan dhowr waji ka eego waxay u baahan tahay marka hore inaan ka eego aragti islaamiya ku eego mar labaad waxay u baahan tahay inaan ku eego reer galbeedku iyo weedha mar labaad waxay u baahan tahay inaan eegno reer galbeedka iyo weedhasan sida ay u sharxeen aan ku horeeyo islaamka waxaan leenahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamayaa diin xagga alle ka soo degtay oo samaawiya inaanay jirin ilaa iyo xukun baa la socday yacni mid nolosha bini aadamka oo dhan xukunta ayay ahayd ama tiisa dunawiga ha ahaato ama tiisa aakhira ha ahaatee ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس إلهي وحلاي أمة وحي هانشر تيميت قرى دبعتنا إلهي وحلو صدر النبي نبي ذا توديقية وحي إلهي سودتيو النبي ذا سودي بالا إلي كتابه كتاب كو حقه محال غفل يا كتاب كان بايس ويدين تلي النبي قال له سودي بي إلهي وحلاي ليحكم بين الناس إن دتك لغوك الحكومة هدف كيدين توسود دكتا إلهي وحكوت المامية إن دتك لغوك الحكومة مثلا آيات كلا القرآن إلهي وحكولي إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إلهي سبحانه وتعالى حكم كدمانتي إسكاله وحانو إذن أمري إن كلي عابدا آيات كلا إلهي وحكولي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إلهي وحلاي الرسول بانو صادر وحنكو صادر أدلة عد لغرهم أيها وحنكو لا صادر با إلهي لي رسول صار عن كتابه كتابنا إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامية وحلو سر رعي وحي ليقوم الناس بالقسط inay dadku cadaalada ku qumaan cadaalad daraaddeed baa loo soo dejiyey ilaahay wuxuu leeyahay isagoo qur-aan ka warramaya wanazalnaa calayka alkitaab tibyaanan likulli shay ilaahay wuxuu leeyahay nabi maxamed ow kitaab baanu kugu soo dejinay tibyaanan likulli shay wax kasta kii caddaynayay kullu shay nolosha qof bini aadami ay u baahan tahay waa mid caddaynaya baa ilahay leeyahay caddayntiisa ay ku taalo waxaan leenahay markaas ilaahay isagoo arrintan tilmaamayo wuxuu leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun waa dadku ma xukunka jaahiligaay doonayaan baa ilaahay yaa ka xukun fiican haddii yani dadkani ay dhagaleeyihin waxaan leeyahay iyada masalada xukunka ku saabsan insha allah muxaadarada say inoogu xigtaan in badan kaga hadli doonaa waayo waxayn geli doonaa muxaadaro labaada ku saabsan alshariica waalqaanuun ama sharciga iyo qaanuunka maadaama taas aad moodo inuu mawduucaasi gaar usii khuseeyo ayaan iyada kaga warrami doona islaamka iyo shareecadiisa iyo qaanuunka iyo qaadashadiisa laakiin maanta mawduuca ka waxaan doonaya inaan intiisa badan kaga hadlo jaanibka reer galbeedka ku saabsan waxaan leenahay diin samaawiyi ma jirto ilaa iyo waxay ahayd mid bini aadamka xukunkiisa oo dhan sita
lafdu siyaasa isagoo xataa nebigu tilmaamayo wuxuu leeyahay xadiidka Abu Hurayra warinayo كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء وحياها يقول النبي عليه الصلاة والسلام غير بنو إسرائيل كو تصوصهم أي هجاميان ما يسياسة وضعن نبي كلما هلك نبي خلفه النبي مرك النبي بانطبع نبي كلا أيام كذبك عين وأنه لا نبي بعدي dabeetana nabigu wuxuu yidhi aniga dabadaysay nebi dambe ma jiro wasayakunu bacdi khulafaa fayakfuruun aniga dabadaysay waxaa la arkaa in madaxweyneyaal badan muslimiintu ay yeeshaan laakiin ay tira bataan waxay yidhahdeen saxaabadii oo markay kuwaasi nagu bataan maxaa ma yeelaa ilaahay rasuulkiisiiyo uufuu bibaycati ilawali falawal bul sidaa ula kala hor baycsanteen kaa doorateena hore fuliya mid dambe ha ka dabageynina isagoo isagii weli idin joogay uma acuuhum xaqahum waxay xuquuq idinku leeyihiin nasiya waxay leenahay marka mas'alati alkhilaafa wuxuu nabigu ku tilmaamayaa inay tahay mid soo taxanayd ilaa nebiyadii hore waxay leenahay mas'aladan basiitnimadeeda waxay noo tilmaami karaa waxa ka mid ah taariikhda muslimiinta ah ama dadka muslimiintii weligood may aqoonin wax la yidhaahdo laa siyaasa fi diin iyo waanaha kaloo la isweydiiyo ama cilmaaniyada waxa loo yaqaanaba la isma weydiiyaba lama aqoon ilaa iyo isticmaalka hortiisa bale waxaan odhan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday maalin isniineed buu geeriyooday markuu nebigu geeriyooday waxaa qof kastoo muslima caqligiisa kusoo degdegi kara in nebiga dee hore loo aaso waxaad kaloo meeshaasi sawiri kartaa nebigii calayhi salaatu wasalaam ummadda dhan hogaaminayay inuu xaq muto maadaama uu nebiyo ummad nebi ka dambaysay uu madaxweyne dad u ahaa in la aaso oo hore loo aaso waxaad garan kartaa jinaasada nebigu qofka nebinimo u rumaysan qiimaha ay ku leedahay haddana saxaabadu may aasin maalintii isniineed iyo maalintii salaaseed toona waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la aasay habeenkii arbacaa maxay qabanayeen baa isweydiinta le mayaa xabaasha loo qodi karay inoo lagu ridaynin qadiyo kale mashquul ku ahaayeen waxay saxaabadu mashquul ku ahaayeen doorashadii madaxweynaha muslimka ee nebiga dabadii dadka muslimiinta hogaaminaya waxaa dood iyo niqaash ka socday markaasi ummadda muslimiinta ayaa maamulkeeda qabanaya dood iyo niqaashkii wuxuu socdaba wuxuu ku gabagaboobay ansaartii inay qayb ka midi tidhaahdo annaga madaxweyneu noqonaya saxaabadii kale ay u jawaabto cumar la yidhahdo ha laga dhigo abu cubayde la tilmaamay aakhirkii tarshiixii iyo doorashadii iyo hadalkii wuxuu ku gabagaboobay inay muslimiintu isku waafaqaan in abibakar madax laga dhigo dabeetana waxaa la doortay ra-iisu dawla alislaamiya ama awal khaliifa ay dadka muslimiinta leeyihin maxay taasi tilmaamaysaa ma laa siyaasata fi diin ba haddii diin la eegayo nebiga malaa mafhuumka yara dee dadku haysta haddii loo eegayo nebiga aasidiisay hayd in wax kasta laga horraysiiyo laakiin saxaabadu waxay ka horraysiiyeen dejinta maamulka islaamiga ee ku saabsan sidii dawladda islaamiga madaxweyne loogu dooran lahaa dabeetana nebiga lama xabaalin ilaa iyo intii laga doortay khaliifkii muslimiinta ah markay muslimiintu dooratay madaxweynihii ee loo ogolaadee la sharciyeeyey ee uu masaajidka yimeen baycadii dadku ay la wada galeen kadib ayaa nebiga calayhi ee uu weliba jeediyey khudbadii uu ku hogaamin lahaa ummadda muslimiinta barnaamijkiisii siyaasiga ahaa ayuu markaas soo bandhigay isagoo le war ninkii maxamed caabudi jirowna nebi maxamed dhimay ninkii ilaahay caabudi jirowna ilaahay waa xayun laa yamuut ninka daciifka ahi buu yidhi inta aan xaqiisa u dhicinaya aniga agtayda waa nin ku xoog leh ninka xooga badanina agtayda waa ka daciif yani intaan xaqa dadka kale ka qaadayo dabeetana wuxuu tilmaamay abibakar minhaajku dadka ku maamuli lahaa wuxuu yihi waxaa layga kiindhigay madax mana ihi ka idinku khayr badan walitu walastu waa madax baa la ii doortay buu yihi laakin ka idinku khayr badanna ma ihi laakiin inta aan ilaah iyo rasuulkiisa adeece kitaabka ku taagnahay waari aqbala buu yihi maalintaan ka weecdana iga weecda waa barnaamijkiisii siyaasiga ah buu ka warramaya uu maamulka islaamiga ku wadi doono idan waxaan leenahay markii la doortay madaxweynihii koowaad ee muslimiinta markii uu soo bandhigay barnaamijkiisii siyaasiga ah kadib markii baycadii lala qaatay kadib ayaa waxaa loo soo jeestay in nebiga la xabaalo habeenkii arbacaad isagoo nebigu isniin geeriyooday ayaa markaasi la qaaday oo xabaasha la geeyey idan waxaan leenahay mas'alada tani aragtida dadka muslimiinta mabay ahayn
meel su-aal ba la iska weydiiyo bale waxaan odhan karaa qur-aanka qisada ugu badane soo aroorta waa qisada muuse iyo fircawn 13 meelood ayay qur-aanka kaga soo aroortay kulluhaa qisada ugu tirada badan lee qur-aanka ku soo aroortay waxay tilmaamaysaa alistibdaad siyaasi gumaysiga dad ay gumaystaan dad kale istibdaad siyaasi dictatorshipka waxa maanta la yidhaahdo ayay qisadaasi inteeda ugu badan ka warramaysaa oo lalahaa reer banu israa'iil xorriyadooda ha la siiyo ummad meel taaganna ha noqdaan waxaan leenahay marka uma baahna adilo badan inaan masalada kaga warramo waayo mawduuca qayb ka mid oo jaanibka siyaasiga ee islaamiga ah waxaaban uga soo warramay hore maalintan ka warramayay addimuqraatiya washuura qaybta ku saabsan tashriic iyo qaanuunkana insha allahu tadabaan kaga warrami doona idan in badan ma jecli inaan qadiyada kasii warramo laakiin waxaan leeyahay muslimiintii hore iyo kuwii dambeba waxa agtooda mas'ale aada u fudud ahay inay diintu tahay shay nidaam nololeeda oo aakhiro iyo adduunkaba qofka muslimkaa anfaca oo uu noloshiisa oo dhami axkaamtay u baahantay uu ka heli karo hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad tahay iyo hadday mabda wax kastoo noloshay u baahantay haddaba xaggay ka timi weedha tani qadartee ama se qiimahee bay leedahay waxaa jirta xarako ama dhaqdhaqaaq bulsheed oo qarniyadii dhexe ka bilaabmay Yurub dhaqdhaqaaqaasi waxaa loo yaqaanaa secularism secularka waxaa la yidhaahdaa waa dhaqdhaqaaq secular waa ladini waa dhaqdhaqaaq diinta le nolosha ha laga saaro ama nolosha nolol maalimeeda ama siyaasadda iyo wixii lamid ah laga foganayo dhaqdhaqaaqa secularismka la yidhaahdo oo tarjumo qaldanaya carabta qaarkood ku tarjumaan cilmaaniya yidhaha cilmaaniya maaha tarjumada saxi waa in la yidhahda alcaalamaniya nisba ila alcaalam addunawi wuxuu leeyahay encyclopedia ingiriiska britannic encyclopedia la yidhahdo volumeka 5 chapterka 9 pageka 19 daa'irat almacaarif albritanniya weeyaan wuxuu leeyahay waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaq bulsheed oo u socda inuu dadka ka weeciyo aakhiro ku fakerka una weeciyo inay dadku siiyaan ihtimaamka badan adduunyo ku fakerka wuxuu yidhi waxaa jirtay dadku qarniyadii dhexe inay aada uga fakeri jireen alle iyo maalinta aakhiro dunidana ay ka dheeraadeen sidaa daraaddeed baa waxaa bilaabmay doonista loo yaqaana buu leeyahay secularismka ama secularka allaadiiniga la yidhaahdo intuu sii wadeen nimanka encyclopediaha qoray bay waxay leeyihin itijaahaasi wuxuu soconayay muddo waxaanu u socday dhammaantii isagoo ah xaraka mudaada liddiin wa mudaada lilmasiixiya isagoo ah xarako kasoo horjeeda diinta dhammaanteed iyo bisifa khaasa christianity-ga leh wadaadada kristanka waa in laga saaraa dhaqdhaqaaqa nololeed dhammaanteed kiniisada fadhiya oo ka baxa siyaasadda iyo maamulka iyo dhaqanka iyo waxan oo dhan itijaahaasi wuxuu ka bilaabmay dunida reer galbeed qarniyadii dhexe sida uu sheegayo encyclopediahaasi ingiriiska ah waxaan leenahay idan ereyga kan sheegaya le siyaasadda iyo diinta waa in la kala saara maaha erey ka yimi caalamka reer bariga ama muslimka iyo kuwa ka shisheeya toona waa erey ka yimi dhanka reer galbeedka idan waa laabudda inaynu derisno taariikhda reer Yurub iyo mulaabasaadka iyo duruufta ay wadato ereyga kale ama sociology waxay ku sheegaan ideologiyadani ay wadato waa inaanu si fiican u derisna taasi waxay keensanaysaa in aynu isku dayno inaynu waxoogaa taariikha ka bixino Yurub iyo nolosha taalay halka waxaan ku hayaa markaasi waxoogaa ballaadhan oo ku saabsan taariikhda Yurub laakiin waxaan isku dayaa inaan aada u soo koobo khaasatan taariikhda diinta Yurub iyo dadka reer Yurubka ka dhaxaysay ilaahay quraankiisa wuxuu marka hore inoogu sheegay ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا إلى وحول إن منك كريستان كاه
ballan baanu ka qaadnay laakiin wixii ay ballanka ku qaadeen badh ka mida ayay iloobeen. ogsoonowo diinta christianity-ga ee iminka siday u jeedo ama ay u taalo male qayb tashriiciya amase male jaanibka siyaasiga ah haddii si sariixa loo tilmaamo. waxaan leenahay yurub waxay diintu soo gaadhay iyadoo muxarafba ah. afraad yar baa reer yurub ay ka soo gaadhay diinta saxiiba. waxaan jecelnay inaan ka soo qaadano markhaatiga qoraalada reer yurub waxay qoreen. qoraaga reer yurub oo keligii waxay masalada tan ka qoreen inaynu waxyaabo yaryaro kamida soo qaadano. waxaan leenahay qarnigii 3 intii laga gaadhayay dawladihii ka jiray meesha tan ama romaaniyiinta iyo wixii lamid waxay ahaayeen dawlado wataniyiin oo aan diin rumaysnayn ama sanam caabud iyo wixii lamid ah. dadkii u nisbe sheeganayay diintii nabi ciise loo soo dhiibayna waxay ahaayeen dad la cadaadiyo ka xaq ku taagan iyo kiisa qaybtii qaldaneyd ay gaadhay mid kastaba madaxa laga tumo. qarnigii 4 markay gaadhay ayaa waxaa soo galay diintii christianity-ga boqorkii loo yaqaanay constantine muxuu kusoo kordhiyaa haddaba isweydiini. qoraaga maraykan ee loo yaqaanay Draper ee qoray buugga la yidhaha conflict of religion and science ayaa wuxuu leeyahay gaalnimadu ama wataninimadu iyo shirkigu waxay soo galeen buuri nasraaniyadda ama diinta kristanka waxay ku soo galeen raadkii munaafiqiinta daraaddeed yani bitaahiiri almunaafiqiina aladiina taqalladuu wadaaif khatiira. iyadoo ay dhacday buuri niman munaafiqiina inay booso sare qabsadeen dabeetana manaasib sare ay dawladdii ka heleen dabeetana ay khalkhal geliyeen buu leeyahay diintii. Draper qoraaga maraykan wuxuu leeyahay Constantine laftiisi buu yidhi oo boqorkii wuxuu ahaa buu yidhi munaafiq aan diinta marnaba ku dhaqmin cumrigiisoo dhanna dulmi iyo fujuur ku jiray aakhiru cumrigiisii buu yaryar cibaadaystay buu leeyahay. waa Draper siduu qoray. Fisher ninka la yidhaahdo waa qoraa ingiriisa isaguna waa taariikhda yani waa nimanka taariikhda qora buu ka mid yahay. Fisher mu'arrikha ingiriisiga taariikhyahankiisina wuxuu leeyahay waa taariikhu Uruba fi al-usur al-wusta ama history of Europe in the medieval period. taariikhda buu leeyahay wuxuu yidhi kiniisadda buu yidhi odayadeedii hore waxyaabo badan bay iska aqbaleen buu yidhi iyagoo duruufta u hoggaansamay isna lahaa malaa waxun baydin markaa gacanta ku wada dhigtaan bedeli doontaa. waxyaabaha ay aqbaleen waxaa ka mida buu yidhi mabaadi'dii taallay Mediterranean Sea-ga oo ay ka mid ahayd in aaliha badani ay jirto. waayo diinta masiixiga buu leeyahay ilaah qura lagu yaqaanay ee waxaa soo gashay fikradana saddexda ilaah ee isku ilaah ah Trinity-ga waxaana u yaqaanay. Renan filosofka Faransiiska ah isna wuxuu qoro u leeyahay waxaa jirta buu yidhi haddii aynu rabno buu yidhi inaynu christianity-ga si dhaba u darisno waa inaynu dib ugu noqonnaa buu yidhi maalmihii Bolas waan odhan kara buu yidhi diinta christianity-ga waxba kama fahmin. Bolas waktigiisii baana la qoray buu yidhi tacaalimta badan ee kiniisadu ay haysato. waxaana odhan karaa buu yidhi tacliimtii masiixu uu ka tegay asliga ahayd waabay ka luntay amase way ku khasaareen. Dorinta ninka la yidhaahda isna wuxuu leeyahay fikrataa ku dhodhow. mu'arrakha kale ama qoraaga kale ee ingiriiska ah ee Wales la yidhaahdo macaalim taariikh al-insaaniya qoray isna wuxuu yidhi waxaa ku soo kordhay buu yidhi kristankii nin la yidhaahdo Shaul al-Tartusi ama Bolas loo yaqaan buu yidhi. ninkaas waxaa raajixa buu yidhi inuu yuhuudi ahaa inkastoo yuhuuddu yidhaahdaan buu yidhi annaga maaha. waxaa raajixoo la ogyahay buu yidhi ninkaasi inuu ahaan jiray nin mucallin oo diin hore rumaysan oo intii aanu maqlin ciise soo bixitaankiisaba dadka diin u dhigi jiray markii uu tii ciise maqlayna isku dhex qalday labadiiba waday. Bolas sidaa u taqaaniin mooyaane waa aabbaha kiniisadda ama mabda'a dambe kristanku ay rumaysay waa ninka dhigay. waa ninka ay ku kaliftay Michael Hart qoraaga maraykan Michael Hart la yidhahdo qoray buugga loo yaqaano The 100 boqolka nin buugga la yidhaha
yani book buu qoray la yidhahdo most influential dadkii ugu ta'siirka ama raadka badnaa dunida 100kii nin baan qorayaa buu yidhi taariikhda caalamka oo dhan ugu raadka badnaa yuu number 1 ka dhigay nebi maxamed buu number 1 ka dhigay liasbaabin ma ciise xaguu geliyey isagu waa masiixi haddana wuxuu ciise geliyey numberka 3aad cumar bin alkhataab numberka 50aad buu geliyey gandhi iyo hitler iyo meelahana 10ka hore kusoo daray wuxuu qoray ninkaasi 100 nin oo uu leeyahay waa 100kii nin ee taariikhda caalamka marka la isku daro Newton baa number 2 ah Newton physics-ka ayaa number 2 ka ah 100 nin buu qoray oo uu leeyahay waa 100kii nin ee dunida ugu raadaynta badnaa nabi maxamed buu number 2 ka dhigay number 1 ka dhigay markaasuu ciise xagga dambe ku qoray number 3 markaasuu caddaynaya muxuu ciise xagga dambe u geeyey iyadoo buu yidhi diinta masiixiga dadka rumaysani ay ka badan yihiin dadka rumaysan diinta islaamiga maxaan haddana tan usoo horumariyey buu yidhi waxaan usoo horumariyey buu yidhi asbaab kow maxamed buu yidhi diinta islaamiga waxeeda oo dhan isaga ayaa la yimi buu yidhi cidi kuma taraxdee isagu wuxuu la yimi diintaasi weeyaan laakiin buu yidhi diinta masiixiga ciise qaybta akhlaaqda ku saabsan unbaa laga dhaxlaya caqaa'idoo dhan bolos baa ka tegay buu yidhi yani wuxuu leeyahay waa lala wadaagayo bolos baa dadkan badan ee arkaysaan divisionka badani bolos bay raacsiisayin buu leeyahay taas buu sabab uga dhigay inuu ciise xagga dambe ama number 3 meelahaasi inuu geliyo waxay leenahay ninkan bolos la yidhaha marka waa ninka xaggaa ka jooga fikradooda laakiin wuxuu leeyahay mu'arikhan ingiriiska ahi bolos wuxuu ahaa buu leeyahay nin yahuudiya oo diin hore rumaysnaa oo soo galay diintaasi bale wuxuu leeyahay caqligiisa weli waxaa kusii jiray fikradii ahayd in ilaahyada wax loo qalqalo oo dabeetana dembi dhaafku sidaa ku yimaado ilaa xad uu sheegay buu yihi ciise inuu u dhintayba dembiyadii dadka kale inuu maydho koroskan iyo waxaan sababta keentayba waa caynkan buu leeyahy waxaan u malaynayaa shahaadada ama markhaatiyada reer galbeedka aynaga filan inaynu in badan sii wadno siday diintii marka hore ay u inxiraaftay galbeedkaba soo gaadhay waa mar labaad ee ilaahay baaba qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلهي القرآن كيسا ينوت المام يا آخر أنت إلهي سويت نبي عيسى بين الله رد دونا ورماذا يلي عيسى ودتك إلهي يقدك تبتنا عيسى ينورن دونا إلهي وأنا وحاد فرطي وما ضدك وشاك شقكم له وحاسيودا عيسى ينو قارسين دونا مركاسي أنا وحنقول أن اعبدوا الله ربي وربكم وارتدى ولا عابد أنا جاي إذن كبيسك عينا ربي انتي أن لتشوغينا مخاطيك أنا كفر يقول إلهي intii daa geeriyooday ka dambaysayna adaa warhaya wixii dambe ay sameeyeen waxaan leenahay marka inkastoo aynu nidhi ma jirto diin samada ka soo degtay ilaa shareeco iyo qaanuun baa la socday laakiin waxaan leenahay christianitigu yurub markuu soo gaadhay wuxuu soo gaadhay isagoo muxarafa wuxuu soo gaadhay isagoo aan qaybtiisii tashriicigaa wadanin waayo ciise almasiix wuxuu ahaa nebi loo soo diray reer banu israa'iil waxaana ciise loo soo diray inuu saxo inxiraafaadkay geliyeen diinta reer banu israa'iil shareecada ciise haystay markaa waxay ahayd tawraad sharcigeedii inuu ku dhaqmo laakiin wixii ay khalad geliyeen ayuu saxayay sidaa daraaddeed injiili min xaysi tashriic waxay ku xidhnayd tawraad lafteedii laakiin way iska tuureen intii kale oo dhan waxaan leenahay markaasi yurub waxa soo gaadhay inaanay xukum ka dhigan ilaahay kitaabkiisii ilaahay wuxuu leeyahy walyaxkum ahlu linjiili bima anzala allahu fiih ahlulinjiilku ha isku xukumaan wixii alla u soo dejiyey baa la yidhi laakiin marnaba may dhicin inay isku xukumeen bal waxay leenahay way ka tageen waayo dawladdii romaniska markii koowaad ee constantino meesha qabsadayba inkastoo boobabkiiyo waxaasi sulto ay heleen waxay ogolaadeen qaanuunka romanigii inuu noqdo qaanuunka dawladda iyaguna inay xukumaan alaxwaali shaksiya faqad guurka iyo geerida iyo dhaxalka waxyaabaha yaree nooca ku saabsan inay kiniisadu maamusho laakiin qaanuunka dawladdu inuu ahaado maxay alqaanuun aromani iyagoo daliishanaya weedhoodii ah icmaa liqaysar wamaa lilahi lilah si kastaba ha noqoto waxaan leeyahay marka koowaad
kiniisadda waxa ay soo gaadhay diinta masiixiga ahi iyadoo aan sax ahayn galbeedka. waa kow, taasi waxay sababtay inay kiniisaddu isticmaashay kelimatu samaa, laakiin ay dadka xukuntay aanay se ku xukumin ilaahay kitaabkiisii, ay ku xukuntay wadaadku wuxuu doonay. idan xukunkay wadaadadu qabsadeen christianityga lalahaa meesha ha laga fogeeyo ma ahayn ilaahay kitaabkiisii, waayo ilaahay kitaabkiisuba ma soo gaadhin oo laguma xukumin, laakiin wuxuu ahaa maxay? ra'yigii kiniisadda. waxa loo lamayay marka waxay ahaan wadaadadii kiniisadda iyo nimankii siyaasiyiinta ama bulshadii kale oo isku haysta cidda xukumaysa dadka, oo ku xukumaysa cid waliba dee ra'yigeedu. wadaadka laftiisu de maskaxdiisu busitaay kitaab ma sito, wuu sheeganayaa kelimatu samaa. taasi waxay abuurtay in rijaalulkiniisa tugyaan aada iyo aada u tiro badan le ay sameeyeen. matalan kiniisadda waxay leedahay ciise ayaa wuxuu ku yidhi butras waxa weeyaan xawaariyiintii nebi ciise ninkii u weynaa ayuu ciise ku yidhi bay idhaahdeen, dhagaxaasi baad ka dhisaysaa kiniisadayda, abwaabuljaxiimna lan taqwi calayha, mafaatiixda malakuutu samaawaat baan ku siiyey, wax kastoo aad dhulka ka xidho samadana waa laga xidhay. yani waxaad adigu xagga ka tidhaahdo xagga allana waa ka maqbuul. wadaadka kiniisada meesha u sarreeya wuxuu isagu xaggan ka yidhaahdo xagga allana way ka soconaysaa. wuxuu yidhi bay idhaahdeen ciise maa taxulluhu cala alardi yakunu maxluulan fi sama, waxaad dhulka ka furtana cirkana waa laga furay. idan wadaadka kelimadiisunbay ku xidhantay inuu isagu wax yidhaahdo. waxa kale oo markaasi soo baxay kiniisadii inay yidhaahdeen, waxay arrintaa ka tartiibiyeen butras meeshii uu ku geeriyooday horta in kiniisadda caasimadeeda laga dhigo. roomuu ku geeriyooday, dabeetana in loo soo raro kiniisadda halka weyn ay ka dhisnaanayso halkaasi. waxaa bilaabmay markaasi kiniisaddu inay bilowdo tugyaan tiro badan leh, gumaysi tiro badan leh, tugyaan ruuxiyay bilaabeen oo ah inaan cibaadaduba dadka meel laba kaga asixin wadaadka gacantiisa mooyaane. kristan noqon maysa haddaan wadaadku biyaha ku gelin, oo baptizationka haddaan lagugu samaynin inta marka dhalatayta lagu soo qaado wadaadku biyaha ku quusin maba masiixiyoobi kartid. xataa wadaadku haddaanu salaada ku tukanin kaama asaxayso, hadda intaad kiniisada timaado ku tukanin dembigaaga cidiba dhaafi mayso. wadaadku haddaanu ku dembi dhaafin oo isagu odhan haloo dembi dhaafo. ilaa xad bay noqotay tugyaankii wax walba wadaadkuna ay ku xidhnaato. waxay gaadhay wadaadka xadhigii badnaayo dadku uu ku xidhnaa in uu wadaadku la yimi caqiide aan maskaxda dadka mari karin. rumeeya 3 ilaah oo haddana mid ah. waa arrin aan loojika bini aadamka marin. 3 weeyaan 3=1 waa waxaan sinaba ilmaha yar ee xisaabta loo dhigaa ma aqbalayo 3 baa hal la mid ah. taasi waxay noqotay inay ku qasbaan wadaadadii inay dadka rumeeyaan. waxay yidhahdeen markaasi caqliga iyo mantaqa laguma niqaashi karo mar hadduu wadaadku yidhi kelimatu samaa afka ilaahay buu ku hadlaya. divine right waxa la yidhahda buu leeyahy waa muqadas, qadaasatulbaaba waa idinka maqla. divine right buu leeyahy mar hadduu divine right yahayna kelimatu samaa buu ku hadlaya. wixii afkiisa ka soo baxay allena waa yidhi, cidi kama daba odhan karto markaas. idan muran iyo doodi ma jirto. maxamed qutb kitaabkiisa la yidhaha madaahib fikriya mucasara isagoo masalada tan ku tilmaamaya, inta badanna aad mooda inaynu isaga kasoo qaadanayba, ayaa wuxuu yidhi waxay arrintaasi xasuusisaa buu yidhi markaan wadaadka arrintiisa xasuustaba jaahiliyadda cusub maamulkeedan dambe. qarniga 20aadna mid lamida bay nagu dhaqeen buu yidhi, oo ah waxa loo yaqaano United Nationska, oo qola tidhi wax allaaliya waxaanu anagu diidno lagama hadli karo. kadalik erayga veto la yidhaahdaa muxuu macnihiisu yahay? inay tahay mooyaane waxaanan anagu doonaynin cidima soo qaadqaadi karta weeyaan. haddii aad soo qaadqaadaan falyaqrus innaas, dadku afka ha wada qabsado hala kala dareero, lama wada hadlayo. idan veto waa uuna arrintii boobku lahaayo la siiyey un qolada siyaasiyiinta ah, oo dabeetana qoladan waaweyn ay kuwa mustadcafiinta ku gumaystaan. waxay ahayd dimuqraadiyaday dunidu inoogu dhawaaqayso inay mu'asasada ugu weyne dunida looga taliyo in dimuqraadi laga dhigo haddii dimuqraadi uu dhab yahay, laakiin isaga laftiisa shaad la gashada ah. waxaynu leenahay marka waxa dhacday wadaadadii inay yidhaahdeen wax walba annagaa leh, caqligu ma fakero, bale xataa scienceski iyo wixii ay sheegayeen oo dhan bay ka hor u yimaadeen, bale caqaa'idii iyo wixii oo dhami. islaamku wuxuu tilmaamaya, ilahay wuxuu leeyahy qul innamaa acidukum biwaaxida an taqumuu lilahi matna wafuraada uma tatafakkaruu. islaamku wuxuuna leeyahay
waxaa laydinku waaninaya mid quraw mid iyo laba waxaad doontaan ba isu raaco fakera baa layidhi maskaxda isticmaala gaalada markay diimo kala sheegeen ilaahay wuxuu leeyahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin inta lasoo sheegay waxyaabo badan ayaa ilaahay wuxuu leeyahay allahu khayrun ama yushrikuun aman khalaqa asamaawaati walarda waanzala lakum min asamaai maaa فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين انت وحول بين هاي الشيء ولا يدي ورا الله إله كلا دنع ودواكين إيا اللي يديها دوتش ربك هنا الدليل فينا يعني سلف روح وقال ياهي عقلك بني آدم كونه استعماله لكن كنيسة way gumaysatay dadkii xaq dhaqaale way ka gumaysatay oo مثلا كريستو ninka la yiraahdo reer galbeed kitaabkiisa la yiraahdo al-mushkila al-akhlaqiyya wuxuu leeyahay yani wuxuu ku sifaynaya wuxuu leeyahay in kastoo uu yiri masiixiyadu ay dadka ugu yeedho tawaaduc iyo faqri iyo soon iyo warac iyo naxariis haddana buu yiri wadaadadii waaweynaa iyaga dhankooda wuxuu ba jira buu yiri al-badkh wal ahadith al-muta'anniqa ma'a an-nisaa' wa shuhra fi al-majalis الخاصة والعجلات والخدم والأرباح الجسيمة والمراد ولا ودادو يقول لك تمشي يحلهم بيحجين هذا ندك وحنا بيلها فقير لماذا يكن باص يعني يواكن ويل ديورانت وأريجا مريكان قصة الفلسفة قصة الحضارة هي قصة الفلسفة لما يبوق الله إلى هذا وين له هي وحلاي كنيسة وحي نقطيبولي أكبر ملاك الأرض وأكبر سادة الإقطاعيين في أوروبا dhulka ugu badan ee Yurubna iyada lahayd buu saada federal systemki ama dhul goosigiina iyagu baaba ka boqoraha buu markaas wuxuu tilmaamay deyrka falda meesha la yiraahdo qura kiniisadu lahayd 15,000 oo qasri ba ku yaalay buu waa meel kiniisada leeda qura ayaa 15,000 oo qasri ku yaalay San John deyrada kale la yiraahdo iyagu lahayd 2000 min raqiq al-ard 2,000 oo adoon buu haystay buu الكوينفيتور وذاك اللي أورنشري يسوي وحها بقول اللبعتان كن أو أضرب بكل هيستي إذا وحي نقدر حاله يدت كذا نوعي قاطع ويلس قراقي اللي أورنشري إنجليز لا وحيري كنيسة بقول عشور بيدت كقاعدة شفت ولي بقول عشور تايدت كقاعدة ويسيكر بيسوي وحي يسوي الضريبة عصبة ولا ضريبة العشور على الرعاية ولي بقى نتي ويكسب بديس بوب كي يوحنا الثالث والعشرون شهر كيلا بيا لبعضنا وحسور يقولي عشور عصبة الله يقنبه للضريبة السنة الأولى قفك السنة كواد وحو الشقائية أردن وينو كنيسة وشبع كذبات شقادة انت الدبال هذا يقول هذا أما سنة كواري قبل يسلو واحد شقائسة وعشور إذن مقاله ذاتك ويكو كان تراشي وماذا حقيقة خبصته طغيان علمي يبا يسميسي ووحي اللورين شري aqoontii soo kordhaysay dunida gabigeediiba way joojisay waxay qoreen kitaabadooda shuruuxdiisa iyo wixiisii bay isu geegeeyeen dabeetana waxay qoreen buug loo yaqaano Christian topography waa macluumaadka kowniga ah ee kiniisadu rumaysnayd ayaa la isu ururiyay nin allaaliya ninkii khilaafa baa la yidhi waa dil aan dhigiisu dhulka u dhicin waa sababtii keentay markaasi in mashkiladda weyne ay ka dhacdo markii ay culamo kamida culamadii saynisku la yimaadeen fikrada oranaysa dhulku waa kurawi waa golob dunidu ama dhulku waa kurawi markay la yimaadeen kubad oo kale maxaa qabsaday caalimkii Boolandiga ahaa iyo caalimkii Talyaaniga ahaa labadii caalime Talyaani ahaa waa Galileo Copernicus iyo Bruno maxaa ku dhacay saddexdaani waxaynu garan karnaa kiniisadu wixii ay ku soo rogtay waxay soo rogtay ahkaam aad iyo aad u qalabsan oo adag Copernicus maxaakimu taftiish intay daydeeyeen buu dhintay oo isaga lama qabanin Brunona isaga inta la qabtay ayaa lagu xukumay dil aan dhigiisu dhulka u dhicin taa macnaheedu waxa weeyaan in la gubo waa la gubay Galileo markii la qabtay xabsiga lagu tuuray ayuu war waas kaga noqonaya wixii oo dhan dabeetana
isagoo aan rumaysnayn bay yidhaahdeen ayuu xabsigii laga soo daayay markuu yidhi war waan ka noqonayaa waxaasi oo dhan maxaakimu taftiish waxaa la yidhaha waayadaa waxay xukumeen waxay gaadhayaan 300,000 oo qof bay kiniisada maxkamad taagtay 32,000 way gubtay iyagoo nool oo uu ka mid yahay caalimka dabiiciga fiisiyahankii macruufka ahaa ee Brono la odhan jiray waa sida uu qoray saaxibul inxitaad 154 page-ka waxaan leenahay kiniisada waxay la timi markaasi inay tidhaahdo anagunba afka ilaahay ku hadlayna dunidoo dhan annagaa ka warrama waxaanu sheegna unbaa dhaba ciddii weedh ka keentana maxkamadaa leh waa in dil lagu qaada arrimahaasi markay isbiirbiirsadeen waxa dhacday kiniisadu iyadoo diin dadka ugu yeedhisay inay iyada akhlaaqdeediba dhimatay qisatu alxadaara wildi orans ninkii la odhan jiray qoray majalada 21 ama volumka 21 safxadda 380 ilaa 680 wuxuu ku tilmaamaya akhlaaqiyaadkii aadka u dhacay ee wadaadada ee meeshaasi ka dhacay xad buu leeyahay bay gaadhay mansabkii boobnimadaba rishwo iyo wax dara lagu gaadho ay noqoto buu leeyahay inaanay waxbaba wadaadadu ka xishoonin waxa kaa inagaga filan malaa cid kale iyo nin dhagaysane wadaadad ka mida wadaadaduhu waxay qortay hadda Catherine wadaadadii la odhan jiray waxay tidhi innaka aynama wallayta wajhak سواء نحو القساوسة أو الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين أو الطوائف الدينية المختلفة أو الأحبار من الطبقات الدنيا أو العليا سواء كانوا صغارا في سن أو كبارا لم ترى إلا شر والرذيلة wadaadada bay tiri kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn kuwa bari iyo kuwa yaryar noocaada eegtaba bay tiri haddaan xagga wadaadada eegto shar iyo radiile iyo balaayo baad arkaysa waa wadaadada ka qortay ee maaha nimanka kale ay hayeen waxaan leenahay waxay gaadhay xada aad u foolxun marka wadaadadii dhowr qaybood bay noqdeen qola fusuqa iyo waxaasay iska wadeen qolana waxay yidhahdeen war waxaan weyn xad loo sameeyaa dabeetana kiniisadii iyo wixiiba way ka tageen waxay ibtidaaca ku sameeyeen raahibnimada waxa loo yaqaano raahibnimadu laakiin iyana waxay la timi cajaa'iba aada u qosli doontaan markaan in yar idinka sheego qoraaga reer galbeed ee la yidhahdo Leakey buuggiisa la yidhaahdo History of European Morals taariikhu akhlaaqi Uruba taariikhda akhlaaqda Yurub ayaa wuxuu yidhi isagoo ka warramaya wadaadadii buuragaleenka noqday ee xadaaradii iyo magaaladii iyo wixii oo dhan iskaga tegay waxay ku dambeeyeen wuxuu yidhi wadaadadaa kale iyagu waxay yidhaahdeen naftan loo nimcaynayo waa in nimcada laga daayaa taariikhyahanadu waxay sheegeen buu yidhi wadaadkii la odhan jiray buu yidhi Macarius inuu hurday 6 bilood meel mustanqaca bulaacad buu 6 bilood hurday buu yidhi isagoo qaawan si jidhkiisa ay u cunaan dubaab sun ahay waxaanu sidii jiray buu yidhi jawaan xadiida waa naftu rabaa inuu cadibo saaxiibkiisii kale wadaad kale oo Osibas la odhan jiray isagu 2 jawaan oo xadiidana wuu sitay 3 sannadoodna wuxuu ku jiray baa la yidhi ceel xun oo goofa wadaadkii isaga Yohana la odhan jiray Saint John ninkii la odhan jiray weeye 3 sannadood buu ilaahay ku caabudayay buu yidhi luq qura waanu weli lugta kale isku taagin habeennaba 3 sannadood ma seexan markuu daalo buu yidhi dhabarka ayuu dhagax ku yara tiirin jiray waxay ahaayeen buu yidhi wadaadada raahibiinta inta badan dharka may xidhan jirin sida waraabahu bay isaga socon jireen oo kaintooday ku jireen wuxuu leeyahay nimanka jidhkooda dhogorta ka baxday ayaa asturi jirtay mararka qaarkood wuxuu yidhi waxay ku socon jireen 4 ilaa naftay rabaan inay cadibaan 2 gacmood iyo 2 adibba way ku socon jireen sida bahalada dabeetana waxay ku noolaan jireen buu yidhi mafaasaatu subac boran dacwooyinka bay geli jireen iyo godadka yarar ee laga guuray iyo xabaalaha buu yidhi inta badan waxay cuni jireen xashiishka iyo caleenta buu yidhi waxay u arki jireen buu yidhi jidhkoo la maydhaa inay ka hor imanayso ruuxda iyo tahaaradeeda sidaa daraaddeed buu yidhi kooda ugu cibaadada badan leh wuxuu ahaan jiray kooda ugu nijaasada badan leh matalan wadaadka la yidhaahda buu yidhi Athaynes wuxuu sheegay raahibkii Antoni la odhan jiray lam yaqtarif isma qasla rajulayn tuula cumrihi buu yidhi dembiga lugamaydhka la yidhaahda buu yidhi weligiiba ma gelin wadaadkaas raahibka la yidhaahdo Abraham waa wadaad kale wuxuu yidhi wadaadkii la odhan jiray Abraham isagu wejigiisa iyo labadiisa adin
konton sannadood biyo ma marin buu yidhi kubkiisa iyo wejigiisa toona. raahibkii iskandariya isagoo calacalaya oo la dadkii wuu xumaaday waa asafaa ayaa wuxuu yidhi waar wakti baanu noolay weji maydhka aanu xaaraan u arki jirnay iminkana xamaamaabay samaysteen buu yidhi wuxuu ka xanaaqsanaa isaga markaa dadkan xamaamada helay. raahibiintaasi dunida way socon jireen dabeetana carruurtay xadi jireen waayo iyagu ma guursadaan waxaanay u baahan yihiin diintii cid ay u tarbiyeeyaan kayntana way joogaan markaa magaalooyinka inta la galaaba carruurta la xadi jiray oo kaynta lala geli jiray si iyagana wadaada looga dhigo. raahibada qaarkood markaa waxay ku caanbaxeen markay magaalada soo galaan in carruurta magaalada dhan guryaha lagu xidho. Ambarius raahibka la odhan jiray baa la yidhi yurub magaalada lagu arko ilmo yari suuqba mari jirin waxay ahaan jirtay in guryaha lagu wada xidho si aanu wadaadkaasi u arag. waxay xad bay gaadheen baa la yidhahdaa intay waalidkii ka xoog bateen xataa ilmaha yare la kaxaysto dadku ay ammaanaan. waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan nimankan buurta galay ma iyagu rag yar bay ahaayeen ee dad badan may ahayn. ma aha. balaaneegno isla kitaabkii ninka qoray wuxuu soo arooriyey wuxuu yihi wadaadada tiradoodu aad bay u bateen arrintooduna way adkaatay dadka indhahoodiina way buuxiyeen. tiro badnidooda haddaan wax idinka tilmaamo buu yihi cid tirisay ma jirto laakiin aan idiin sheega buu yihi ciid alfusx waa easterkaan filaya ciidan la yidhaahdo ciid alfusxigan qura buu yihi waxa isu iman jiray 50,000 oo wadaad oo kayn gala kaymaha inta laysaga soo baxo ayaa laysu iman jiray ciid alfusxiga. masalan wuxuu yihi qarnigii 4 wadaad quro ka mida wadaadada kayngalka ahi ayaa 5,000 oo wadaad haystay. wadaadada kayngalka masalan wadaad ka mida saraabiin wadaadkii la odhan jiray 10,000 oo dhalinyaraa buu haystay oo keligii sheekh u ahaa. qarnigii 4 gabagabadiisii buu yidhi dadka masar degan iyo wadaadada kaynta gala way istira leekaayeen buu leeyahy. masar oo dhan ummadda degtaba iyo wadaadada kaynta gala way istira leekaayeen. idan kiniisadii labay noqotay qayb fisqiga dabaalatay wadaadadeedii iyo qolo tiri dunidan iyo waxeedaba ha laga hijroodo oo malaada sida kuweenan buurta galee suufiyiinta aynu ku sheegnoo kale iyana raameeyey oo buurta galay. waxay leenahay kiniisadii waxay la timid waxyaabo aada u tiro badan oo adag oo nolosha ka wada gedisan. intaa waxay ku darsato mawduuca aynuu soconno xumaantay la soo baxday waxaa ka mid ah sukuuki lgufraan tigir la yidhaahdo bay bilaabeen. majmaci latran 1215 taariikhdu markay ahayd bay kiniisadu isu timid. dabeetana waxaa la soo saaray go-aanka ah tigirhka dambi dhaafka inay jarto kiniisadu. tigidh baa la sameeyey. tigidhka waxaa ku qoran rabbuna yasuuc yarxamuka ya fulan ويشملك باستحقاقات الأمة الكلية القدسية وأنا بالسلطان الرسول المعطي لأحلك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي استوجبتها وأيضا من جميع الأفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا والكرسي الرسولي وأمحو جميع أقذار الذنب وكل علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهر وأردك حديثا إلى شركة في أسرار الكنيسة وأقرنك في شركة القديسين أردك الثانية إلى الطهارة والبر اللذين كان لك عند معموديتك حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاء إلى محل العذاب والعقاب ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح. وتقركي تقركي كنيسة شريسة تقركي نروح الشيء ولقى بس يد باب واحد دون تسمع وحقال العجا مركز كينتو وذاك تقركي كاسو مكو قينية دم بيجي بس أصلا قلنا في بيت هذا إذا دم بدني واحد بكبها دم بدأ كافض إستقط تقركي أبو جاهز كويه هاي كنيسة دبوده هذا وحلاية هاي ويلس قراقي لورنشري إنجليز معالم تاريخ الإنسانية بوجي صلى الله عليه كنيسة دبوده هيبة دي وحي لهيدا ودوي كتك تيبوده weliba waxay ku darsatay buu yidhi nidaam taxilla nidaam cusub oo kale soo saarto oo dadka in la siin karo qaar fursad uu dambaabi karo. مثلا waxaan leeyahay kiniisadu imanaya marka waxa la leeyahay adiga waxa laga dhaafay 20 suuqa gal laata ka soo socda gal suuqa waa laga dhaafay waa nidaam taxilla yani dunubta qaarin lagu markaas wuxuu leeyahay weyli
ceebaheedii hore ee nidaamu taxilla waxay ku darsatay buu yidhi sukuukul khufraankii tigidhkii dambi dhaafkana way ku darsatay dabeetana meeshiiba way dhimatay waxaan leenahay marka waxaa mashkiladii badatay kiniisadii intay waxay doonto samaysay ayay wax allaaliya wixii kasoo horjeestana waxay u samaysatay maxkamad la yidhaahdo maxaakimu taftiish maxkamadaas waa maxkamadii Will Durant odaygii la odhan jiray uu yidhi wax kastoo kaleba haddaan ka dhaafna buu yidhi kiniisadda shuduudkii jinsiga ah haddaan ka dhaafna buu yidhi xubihii kale oo dhan ay sameeyeen haddaan dhaafno kolnaba suurtagal maaha buu yidhi maxaakimu taftiish in taariikhda ilowda wadaadada wax kaleba haddii laga dhaafo buu yidhi marnaba taa iyada lagama dhaafi karo Waylisna wuxuu yidhi qarnigii 13 waxay soo saartay buu yidhi kiniisaddu maxkamatu taftiish albaabawiya oo wadaadka cid kastoo iska hor yimaadaanba madaxa goynaysa wadaadka bilaabay buu yidhi magaxumadiisa waxaa la odhan jiray Innocent the Third ninkii Innocentka ayaan dembigaba lahayn ayaa maxkamadan samaystay dabeetana dadku madaxa kaga goray wuxuu leeyahay waxay maxkamadani samaysay iyada wax laga warrami kara maaha waa taladilin 300 oo kun ka badan oo qof ay xukuntay oo 230 kun oo qof ku xukuntay dil aan dhiigiisu dhulka u dhicin intaasoo dhan markaynu soo dhaafno aynu weecanno jaanibka siyaasiga oo ah mawduuceenu ku saabsan kiniisaddu waxay samaysay tuqyaan siyaasiya awalan waxay tuurtay ilaahay xukunkiisii oo way ka tageen ثانيا waxay yidhaahdeen waxa aanu leenay sulta zamaniya temporal sulta bay yidhaahdeen sultada tani waa maxay waxay leeyihiin iyagoo aan marnaba odhanin ilaahay sharcigiisa dadka ha lagu xukumo ayay waxay yidhaahdeen waa in boobku uu hoos yimaadaan boqorrada iyo cid wal oo dhamiba oo uu odayga boobka ahay cid walba xukuma waxaa soo baxay markaasi cajaa'iba aad u yaab badan leh albaba nicola boobkii nicolai ee koowaad ayaa wuxuu soo saaray bayaan odhanaya ina ibnullahi ansha'a alkiniisa buu yidhi inankii ilaahay baa kiniisadda sameeyey bian jacala rasuulu butras awala ra'iisin laha isagoo xawaarigii butras la odhan jiray ka dhigay buu yihi ra-iiskii koowaad asaaqifada roomana waa dhaxaltooyada xaqa ee xidhiidhka ah ciddii xaqa u lahayd wadaadka boobka ahi buu yidhi waa mumathilu llaahi calaa dahri lard waa ninka ilaahay uga wakiilkee matalaya dhulka korkiisa yajib an takuna lahu siyaada alculya wasulطaan alacdam cala jamiici almasiixiyiin waa inuu helaa buu yidhi siyaadada iyo sultaanka ugu sarreeya masiixiyiinta o dhan xukaaman kaanuu aw maxkuumiin dabeetana waxaa la yidhi waa inay sultada kiniisadda wada hoos yimaadaan waxaa dhacay markaa qisooyinka ugu cajabta badan leh ee Yurub ka dhaca masalan history of Europe sida uu qorayo Fisher ninka la yidhaahdaa wuxuu leeyahay qiso aada u caana baa jirta masalan qisaska wadaadada iyo dhex maray aan laba qiso qura idiin soo qaado sida uu qoray Fisher ama se uu qorayo ninka loo yaqaano Will Durant qisat alxadaara mujalladka 14 wuxuu Helbrand ninkii la odhan jiray Helbrand saa magaca ka muuqata waa magac Jarmal u eg waxay ku sharxi jireen buu yidhi dadkii casrigiisa noolaa ashucla alkhaalisa bay odhan jireen wadaadka kan waxa boobnimada loo doortay 1370 kadib markii uu 8 boob usoo shaqeeyey weliba ninkan cajabtiisa baa la yidhi qisisba muu soo marin isagoon qisiis soo marin baa mar qura qisiisnimadii inay talasiyaa loogu daray boobnimadiina weliba waxay dhahdeen maalintii la dooranayay wuu ka yaro warwareegay isagu laakiin dadkii oo dhan baa qayliyey iyagoo leh ina alqadiisa butras yuriid an yakuna Helbrand baba bay dhahdeen butraskii koowaad baa raba inaad boob noqotay boob noqo dabeetana boob buu noqday wuxuu la baxay magaca loo yaqaan jiro jarigii 7 Helbrand markuu boobka noqday ayaa waxaa la iskhilaafay boqorkii German ka talin jiray ee la odhan jiray Henrigii afraad boqorka iyo jiro jari waxaa dhex maray qiso aada u cajiiba qisadan cajiibkii waxay tilmaamaysaa
waxa la isku qabtay mas'alada tacyiinaadka loo yaqaano yani boosaska wadaadada la siinayo iyo sida loo cayimayo ayaa la isku qabtay markaas buu jiro jiray ninkii la yidhi wuxuu sameeyey uu soo saaray qaraar uu leeyahay waxaan xaaraam yeelay manaasibta wadaadnimada in la iibiyo kow wadaad inuu guursadana waan xaaraam yeelay wadaadadii baa bariska guursadeen baa la yidhi dabeetana wadaad inuu guursadana waa mamnuuc kadibna wuxuu sameeyey wax alaaliya wixii wadaad uu guursaday ama rishwe iyo wax meesha kusoo gaadhay buu eriyey taasi waxay keentay 5 wadaad oo la taliyaal u ahaa Henry afraad ayuu 5tiiba cadsilo shaqadii ka eriyey dabeetana mashkiladii way sii badatay wadaadkii Bamberg joogay magaalada Bamberg la yiraahdo ee Germany-na wuxuu yidhi isaga arrintiisu madmadow bay ku jirtaaye adigu waa inaad Rome degdeg u timaada boqorkii Henry afraad la odhan jirayna isna wadaadada wixii ku kacsanaa wadaadkan buu soo ururiyay 24 wadaad buu shiro qabtay arrintii markii la wadwaday waxay isku raaceen inay yana casilaan boobkii buu isla yidhi waanu ku casilay markaasaa weliba waxaa ku raacay wadaado Lombardia meesha la yidhaahdo joogi jiray arrintaasi waxay keentay warqadii in loo soo diro book oo boqorku leeyahay waa ku casilay nimankaasina ay kula saxeexayeen warqada waxaa ku qoran min Henry الملك بأمر الله لا بالاغتصاب إلى هيلبراند الراهب المزيف للبابا بقر كيشر مروح صغر ورغدنا waxay ka timagoyri Henry boqorka ku ahaa ilaahay amarkiisa ee waxba boobin waxaanay ku socotaa Hildbrand oo ah wadaad forgery oo boobna ahayn buu yiri warqadaas loo diray Roomay warqadii tagtay markay Rome tagtay ee la akhriyay ayaa wadaadadii wadaadka la joogay calaaba ismadax mareen 110 wadaado meesha joogay waxay dhahayn ninka warqada sida la dilo inta boqorka la gaadhin ninka warqada sida hala dilo wadaadkii baba ku guntaday in la nabadgeliyo ninkii warqada siday wadaadkii markaa wuxuu soo saaray awalan Henry oo jannada waa laga xaaraantinimay mamnuuc ثانيا لعنة بانو كورك كاسر ريبير ثالثا بقر سويدنا ولا قاعسلي ما أنت اللي قبل عبه بقر متي رابعا وحلالي وحديد ضد دارتي مسيحية كل دارتي إن يداعدوا نقضان بقر كونه هدام بوت كيا هي دارتي اللي وين كعبتي وحبل إذا مرة على ضاع سدان كاس وذا كتاس بصوصار يسقون إنه لا يبقر وينه ضاع arrintii boqorkii iyo boobkii way adkaatay yani waxa dareemaysaa sultadii boobadku xadkii gaadhay boqor dhan oo wada haystay inuu yiraahdo waan ku casilay dadkuna ma aqbali karaan oo ka hadayaan in la yiraahdo Henry wuu dadaalay wuxuu soo ururiyay waxoogaa wadaado ninkan ku kacsanaa dabeetana wuu shirshiriyay arrintii wadaadadii wuxuu gaarsiiyay Utrecht meeshan la yiraahdo wadaadadeedu waxa la yiri membarka yara ka nacdale wadaadkii boorkii meesha la haystay arrintii way adkaatay markay adkaatayna nimankii barasaabadii iyo ashraaftii iyo dadkii kale noobaladii wadaadkii boobka ahaa taageerada la siiyay dabeetana inta shir la qabtay ayaa nimankii gobolada haystay wixii dhameeyay soo yimaadeen ayaaba boqorkii loo yeeray waxa la yidhi boqor u dhageyso Tribor magaalo la yiraahdo lagu shiray dabeetana waxa la yidhi waa 16 Oktoobar 1970 waxa la yidhi boqor u dhageyso 22 February sanadka soo socda waa Oktoobar markaa 22 February sanadka soo socda haddii aanad ka keenin toobadaadii boobka boqor kala dooran waa inaad boobkii u tagtaa dambi dhaaf waa inaad ka keentaa caddayn inuu boobku dambigaagii dhaafay waa ilaa boqor kala la dooranaya arrintii way ku adkaatay ninkii jirajari dunidiiba cidhiidhi bay ku Henry dunidiiba cidhiidhi bay ku noqotay gurigiisii buu iska galay 3 maalmood buu gurigii ku jiray dabeetana wadaadkiiba warqad u diray uu leeyahay waan soo socdaa talyaanigaana kuugu imanaya dambi dhaafna waan doonayaa waa boqorkii dhammaan ummadda dhan u talinayay wadaadkii buu leeyahay dambi dhaaf baan rabaa waana Roomaana imanaya waan soo socdaa
wadaadkii wuxuu ugu jawaabay Aguburg magaalo la yidhaahdo baan u safrayaa ee yimin mish ayuu ugu soo jawaabay lama hadala waa iska soo socda buuraha alif loo yaqaaniyo dhulkaasi oo dhan winter buu ka tallaabay gaadhi la fuulay ma jirin iyo waxa lagu leeyahay waxa winterkoo barafkii ugu xoog badnaa uu dhacayo ayuu Henry intuu Germany ka tagay Talyaaniga lagu galay isagoo raadinaya boqorku inuu boobku inuu dambi dhaafo markuu ogaaday